maanta waxaynu joognaa xafladda xilwareejinta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo ah wasaarad halbowle ah laba shaqo oo waaweyn gacanta ku haysay wax badan runtii 3 sano iyo barkii xukuumaddu dhisnayd laga qabtay wasiir deeqa ka qabatay hagidii iyo tilmaamihii iyo ballanqaadyadii madaxweynaha fulintoodiina ku salaysnaa oo ay ugu horeyso koow shuruucda iyo siyaasadaha halbowlaha oo dalka dhismihiisa in wasaaraduhu ay ka shaqeeyaan intii aan golaha aniga qudheed xubinta ka ahaa waxaan ka marxaati kacayaa wasaaraddu in shuruuc iyo siyaasado ay soo gudbisay la ansixiyay qaarkoodna madaxweynuhu saxaxay sida sharciga naafada heshiisyo caalamiga oo xuquuqul insaanka golaha ay mareen la meel mariyay oo la saxaxay oo ay mareen hay'adaha sharci dejinta ee muhiimka ah kuwa kalena golaha ama ay yaalaan ama ay ka gudbeen haddii shuruuc iyo siyaasado dalku ku shaqeeyaan yeelano macnaheedu waxay tahay in hay'adaha dawladdu ay dhismayaan sharciguna uu kala hagayo dhinaca xuquuqul insaanka waxyaabo badan baa intii ay xukuumaddu jirtay 3 sano iyo barkii laga qabtay ka horna sida ay wasiir deeqa qabatay ilaa 2000 waa qorayso dhiib وين شقوين في عنبا سوق بصومي هوانكي وسيردا ها أو كرتي بدن يوسير داقة يوسير حنيف وما أنت اللي جوا ريتشي حلكن وحيتوسع إن مال بدن هوانك الصومالية وهو يمكنني أساس كي قيس كصومالية ناهي أي واحد جالسين كران هدي شقوين كاي نكواب لنا عكلا إن shaqooyinka kale ay wasaaraddu ka shaqeynayso isku xidhka hay'adaha ay khusayso dhinaca xuquuqda siyaasadda ee haweenku leeyihiin ka shaqeynta dadka baahiyaha gaarka leh xuquuqdooda iyo arrimaha qoyska ka shaqeyntooda caruurta waxyaabahaas oo dhimi waa waxyaabaha halbowlaha u ah wasaaraddan in la sii meel mariyo meel dheer la gaarsiiyana waa waxaynu diyaar u wadanahay xukuumadduna ka shaqeyn doonto run ahaantii waa siyaasadda ka mid ah xuquuqaha kale asaasiga ah ee ay leedahay haweenka iyo qoysku ay leeyihiin baa kamid ah in kootada haweenka la tixgeliyo oo mar badan ay gudida siyaasadda ama tiirka siyaasadda loo dhan yahay uga loobi garaysay wasiir deeqa oo uga hadli jirtay xukuumadduna ku dartay run ahaantii marka taa xukuumaddu waa ballan qaadaysaa heshiiskii siyaasadeed ee hadda ay madaxda qaranku kala saxeexdeen qayb buu ka yahay in kootada haweenka la tixgeliyo in la tixgeliyo xuquuqda dadka baahiyaha gaarka ah leh oo iyagana la meel mariyo waa qayb kale oo muhiim ah marka waan wada shaqeynaynaa halgankaas lagu wada jiray ayaa wasiir xaniif iyo wasiir ku xigeenka iyo dhammaan howlwadeenada kala duwan ee wasaaradda iyo xildhibaanada labada aqalba u yaala haweenku ha helaan xuquuqdooda aynu xaqiijino kootada haweenka ee 30% matalaada golayaasha sharci dejinta ah kana wada shaqeyno waa mahadsantihiin guul baan u rajeynayaa wasiirka xigeenka waa intaas ku soo koobi lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh